بسم الله الرحمن الرحيم أنا علي كينان محمد chairmanka Cali Dhagweyn waxaan halkan magaranaysaa aan ka cadeynayaa arimihii MCA-ga ee reer Cali waayahan magaranaysaa wiilal afar ah ay u taagnaayeen ayaa waxaan go'aan ka gaarnay maanta inaan soo afjarno annagoo kulman oo odayaashii Cali Dhagweyn ah anigoo chairmanka ah tolkan uu igu duuban yahay halkan maanta waxaan ku soo gunaanudnay in arinta aan la fagurno oo aan hal wiil soo reebano annagoo dhan odayaalkii ah wiilasha taagnaa waa afar wiil afarta wiil nin kastaba qoyskii uu ka dhashay odayaalkiisa ayaa socday waxaan isku raacnay dhammaan Cali Dhagweyn in hal wiil soo reebano taasoo aniga la ii wakiishay dood badan kadib markay qoysaska arimaha ay in badan ay ka hadlayeen aniga chairmanka ayaa la ii wakiishay afarta qof inaan qof aan ka soo reebo oo ku dhawaaqo qofkii aan ka soo reebo ayagu wiilasha isku mid ay yihiin oo ay siman yihiin oo afar wiil oo adeer u ah ay yihiin markii hadalka la soo aruuriyay reer Cali uu gartay in afarta wiil aan ka soo reebo ayagoo Cali Dhagweyn ah oo siman oo aan adeer u ahay dhammaan waxaan gartay inaan hal wiil aan soo reebo sanadkan oo u tartamo MCA Damajali inuu u tartamo wiilka asaga ah ee aan soo reebay ee aan ku dhawaaqay magaciisa tolkana ay igu raaceen dhammaan waa Umar Abdigabay asagana hadda inta lama taagno annaga ka wakiil ah annaga soo reebnay wiilasha kale taagan annaga ka wakiil ah annaga soo reebnay annaga oo ayaga aan kala tashanin annaga dhalnay waa wiilashaanada waxa aftiyo ayaga aan ka qaadnay iyo waxaan ayaga wareysanay malahan annaga ayaa dhalnay annaga ayaana soo joojinay annaga ayaa go'aan ka gaarnay sanadkan in wiilasha kale ay joogan oo Umar uu sanadkan uu tartamo calafkiisa wuxuu meesha ka qaadaba insha Allah ta'ala wiilasha kalena waa wiilashaanada annaga u nasteexaynayna annaga nafaas u fiirinayna annaga tixgelinayna oo wiilashaanada waxaan aaminsanahay halka in ay waxba ka soo naqanaynin wiilasha anaga aan dhalin ee halkooda waxba uusan ka soo naqanaynin sidaas ayaan macnaha anaga isku raacsanahay anagoo kulman oo afarta wiilba helidii iyo waalidiintii iyo dadkii dhalay ka kooban wixii kale oo maamul ah reerka waxaan ka codsaday in aniga aan maamulo oo qaybiyo wax alla wixii xibna ah oo soo bax hatta Umarka aniga aan soo reebay asaga laftiisa inuu aniga iga dambeeyo hadalkii uu qaato nafaasihiisa iyo programkiisa aniga uu ila tashto oo reerka Cali Dhagweyn ee aan chairman ku ahay wixii ku saabsan siyaasad inaan aniga aan maamulo oo aniga nin kastaba nafaaska aan geeyo oo ku qanco insha Allah ta'ala kuwa kalena nafaas baan u heli doonaa oo qiimo badan baan u heli doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh alxamdulillaah thumma salaatu wassalaamu calaa rasuulillaah waxaan iskugu imaanay maanta annagoo ah beesha reer Cali oo ka mid ah beelaha cawliyahan ee Dhadhaab arin MCA tii ayada ahayd alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay si wanaagsan ayuu noogu dhameeyay waxaan soo reebanay annagoo gadgadinay oo waxyaalo badan fiirinay Umar Abdigabay ayaan la soo harnay bismillaahir rahmaanir rahiim wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الرحيم أنا داهر محمد عبد النور وما أنت أن أفري سنيشر وبشرة على دقوينة أنا بأسكواد رعني MCA Damajali إن أن هالويل أنصار ربنا وأنكو جولي سني أنا بأضياشة Umar Abdigabay ayaan maanta alxamdulillah ayaan isku raacnay Calina insha Allah madnamada uu ku shaqeysan doona wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaa rasuulillah sida ay u sheegeen odayaasha iga horeeyay anigoo ah nabaddoonsan yare sida ay u sheegeen odayaasha iga horeeyay reer Cali maanta oo January ay tahay 22 waxaan shir isugu imaanay Dhadhaab shirkaas oo looga hadlayay arrimo badan soo jiitamay
MCA dhamaajaaley oo in loo tartamo uu qorshaha ahaa 4 wiil oo reer calina ay soo istaageen 4 wiil ay soo istaageen ay odayaal ka dambeeyeen odayaasha ay soo joojiyeen in badan haddii la isgarab ordayay talooyin badan oo la soo sameeyey la adligeed baa maanta la isugu yimid maantana siduu jaamaca sheegay asagaa lagu wareejiyey walaayadii asagaa loo dhiibay arrintii reer cali iyo masiirka reer cali iyo talada reer cali awal buuna hayay sidaas darteed haddee jaamaca nin buu soo reebay nin kale wuu aqbalay reer cali insha allahu tacaala wixii taleeha dambana siduu akhriyay bay ahaan doontaa haddii ilaahay raalli ka noqdo haddee waxaan u sheegaynaa intaa danaynayso arrimahanaga iyo shirarkanaga iyo maaragtay midnimadanada in ay reer cali ay arrintaas ka midoobeen oo ay si wada jir oo caafimaad qabta ay u qaateen Cumar Cabdi Gabay waana maasantiin bismillaahi raxmaani raxiim aniga oo ku bilaabahayo magacayga waxaa waaye Cabdullaahi Cabdi Xuseen sida ay bulshada u taqaan Cabdullaahi Cabdi Garay kana mid ah odayaasha reer cali Raamagudda Dhadhaab County alxamdulillah ilaahay ayaa mahad iska leh maanta waxaan iskugu imaanay magaalada la yiraahdo Dhadhaab shirar in badan soo socdeen quseeyeen arrimaha reer cali dhaweyn ee Dhadhaab wada dago annaga oo indhawaalaba sida inta badan ay ogsoon tahay rabna inaan ka loolanno ama u tartanno kursiga Dhamaajaaley Ward wiilal reer cali weyn oo ilaa ay tirada 4 ay tahayna intaba ay soo wada hawadeen alxamdulillah ilaahay ayaa mahad iska leh dadaal fara badan oo la soo waday mas'uuliyiintii reer cali dhaweyn ee Raamagudda uu horkacay chairmanka guud ee reer cali dhaweyn ilaahay baa mahad iska leh shirarka ayaga ayaa maanta inoo soo ilaaday si wanaagsan iyo isfahan iyo ismaqal oo kalsooni leh ayuu shirki noogu soo dhamaaday waxaan isla qaadanay oo u gudbinaynaa cid walba oo arrimahaas ay quseeyeen oo hadda halkan aan ku sugneen una aftiiminayna go'aanka reer cali dhaweyn mas'uuliyiinta ay calaweynka Raamagudda ay u gmadaan arrimahan inay maanta guul ka soo gaareen gacmaha iska qabsadeen isfahan ay ku dhamaatay ayna soo qaateen Cumar Cabdi Xasan kuna magac dheer Cumar Cabdi Gabay uu noqon doono musharaxa reer cali dhaweyn ee u tartamaya kursiga Dhamaajaaley Ward cali dhaweyn ay soo wada qaateen intaasan isla fahanay alxamdulillah si wanaagsan ilaahay waa noogu dhameeyay arintaasan si wada jir u soo gudbinayna waana midaan isla qaadanay in badanna laga soo shuurey guushaas ayna ku dhamaatay insha Allah waxaan rajeynayaa wixii kale dhiman inaan gacmaha iska qabsan doono wiilashii la taagnaan insha Allah hadii ilaahay yiraahdo ay sidaas tolkooda ugu qanceen sidaas iyo guushaas ay maanta noogu soo dhamaatay sanadka soo socda waxa calanka noo sidi doona hadii ilaahay yiraahdo Cumar Cabdi Xasan sanadkan doorashada hadda soo socota hadii ilaahay yiraahdo intaasaan si caam isla qaadanay culamaa u diinki dhalinyaradii mas'uuliyiintii idalkeen intaasaan isla qaadanay intaasaan insha Allah bulshada nala nool aan u gudbinayna hadii ilaahay yiraahdo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا دقو إسماعيل هارون وكما عدير دقو كجر داداب سب كاونتي الحمد لله ما أنت ماشان أسوا إلهي اسكو كان كاني أنا كعدي إلا على دقوين أو إذل وماشان اسكوي ما تداداب أقل هيريو أنقول هاني شركة سوها سيدي أنقول كلا ريوي لهن ولشاينا إزدوا السعودين Dhamaajaaley Ward وترتماين كرسيga MCA الحمد لله إلهي ومهدله دقيداينا مسؤولك أهين إلهي ومهدله أرن في عم بيسوق أميين أرن تاسو أرن آد لو فرحه ونوم والبعاء حتى هرداء وصف يعني له اللي دونا أركيا أو أركو وأرن آد أم فرحني أرن آد جوابين وين واي غير الله سيوتشا من كاين مزي علي أرن في عن ولشوا حلي سفي عن بوكو حلي سفي سيدي وكو حلينا هل ويل بنصر روي هل كويل الله ده عمر عبد حسن وكما عدير عمر عبد كوي غير الله كدغو أرن غير الله نغدغو إلهي باب محل الحمد لله إن شاء الله سدعين ويل إلى ريوانه إلهي وحقير قو إلهي نوصيه با إلهي أكبر يا ويل شاين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaal waa ina salaamayaa maanta waa farxad Soomaalida waxay dhahdaa maanta madaxa ay furuntii sheegay amal weeyo in badan baan soo dawajiitnay in badan baan dhibaatooyin baan soo maray in badan baan shirar badan iyo waxyaalo badan soo galnay shirar dheer kadib raacal lagoyn waxay go'aan ku qaateen maanta inay midoobaan oo muwaafaqo iyo midnimo ay qaataan odayaasha raacal shureen badan kadib waxaan qaadanay oo jeemanka anaga maanta uu noo soo rabay markaan walaadii u dhibnay Umar Abdi Gabay walaalka Umar Abdi Gabay waxaan u sheegayaa asaga hadda nalmo joogo meesha uu ka maqay waana soo qaadanay waxa laga helaa ay qaad oo dhig tolka waa laga helaa raacal intuu qiimeeyay uu tashay uu soo qaatay waan ugaaskanagi saa ay tahay waxaan u sheegayaa Umar Abdi Gabay raacal dhagweynka dhamaajalay war way ku qaadeen adoo maqan baa lagu qaaday si lagu qaaday inaad uga soo baxdo ayaan ka codsanaynaa raacalna wuu fiyow yahay ninka raacal oo adeecadayda maanta codkan ku hadlay maqlaayeen waxaan u sheegayaa walaalayaal wax walba oo soo jiitay wax walba oo soo maray raacal odayaashiis way kulmeen wayna midoobeen wayna bogsadeen nin walba oo meeshu joogo ha ku bogsado caafimaadkana ha ku xaqaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa fariin aad u dheer inaan gaarsiiyo ogaadeen hawlihan qaas ahaan hawlihanka degan Dadaab district maanta ayaan shir galnay shirka asaga ah taariikhdu ay tahay taariikh 22 bisha koowaad 2022 alxamdulillah ilaaha mahadi shirka ayaa waxaan ku galnay Dadaab aqal heriyo raacali ayaa iskugu imaaday suldaanadiisii nabadoonnadiisii odayaashiisii wadaadadiisii culimadii ayaan iskugu imaanay midnimo aan raadinaynay in badanna aan u baahnayn inaan ku midowno ayaan helnay maanta alxamdulillah soo jiitin ka badan maanta waxaan isku afgaranay hal wiil inuu noo istaago Dhamajaaley Ward MCA ninkaasoo aan isku raacnay Umar Abdi Gabay wayna naga go'an tahay wiilasha saddexda inta kalena annaga ayaa waalid u ah mas'uul ka ah walaayadoodana ka soo qaadnay raacalina u dhan yahay oo ka wada heshiiyay fariintan waxaan gaarsiinayaa walaalkay musharax Umar Abdi Gabay inuu cid u mideeyo hal uu ka dhigo ogaaskii uu ahaa waxaan jecelnahay cidii iyada ah hadafkii iyo hogaankii ay lahayd in maanta la gaarsiiyay baahidii ay qabtay inuu ma aragtay u noqdo suldaanka cid loo soo doortay ay maanta ay soo jagawaysay inuu asaga guushi iyo ushi hogaankii cid uu qaado ayaan ma aragtay go'aanka gaarnay haddaan raacalinahay dhammaan hawlihan ee dadka deegaankoona la degan Raamagudda gacmo furan ayaan ku soo dhaweynaynaa wanaaga hawlihan ayaan ka shaqeynaynaa mideenta hawlihan ayaan ka shaqeynaynaa ee wanaagooda iyo hawlihan wuxuu dan u yahay iyo dhammaan ogaadeen haddaan nahay bahda raacali assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah xasbunallahu wa ni'mal wakiil ilaahay baa mahad iska leh aniga oo ka mid ah odayaasha raacali ee Raamagudda magacayga waa aadan haajir cali oo ku magac dheer aadan gacmay waxaan maanta inta isugu imaanay shir raacali uu ka wada hadlayo uu ka go'aansanayo arrimo siyaasadeed arrimahaas oo in badan soo daba jiitamay ilaa shantii la soo dhaafay ee dhaxdan madmadow iyo wax raacali ku dhex jiray oo maanta Ilaahay naga saaray arintii siyaasadda afar wiil ayaa noo taagneed afartii wiil maanta aan kala reebnay raacali uu ka wada hadlay oo ka wada fariistay maanta ayuu dhameystay raacali go'aan wuxuu ku gaaray wiilashii kala celintooda iyo kala reebkooda in chairmanka raacali ee guud Ali Maxamed Ali Kaynaan oo ku magac dheer Ali Dumaal in loo wakiisho oo wiilashii uu kala reebo yuu raacali go'aansaday asagana uu aqbalay Ilaahii Qafuur Rahiimka ahaa wuxuu waafajiyay uu ku dhawaaqay chairmanka anaga guud ninka la yiraahdo Umar Abdi Gabay in 5 sano ee soo socoto hadduu alla yiraaho uu hogaamiyo reerka si wanaagsanna uu hogaamiyo amarna fariin waxaan gaarsinayaa tolkaadi adoo ka maqan ayuu ku qaatay Ali Dhagweyn uu isku raacay magacaadu isku raacay chairmanka guud baa kugu dhawaaqay Ali Dhagweyn uu ku raacay adigana waan ku salaamaynaa salaan kadib waxaan ku leenahay sida lagu doortay ee tolkaadu uu ku jeclaaday ee chairmanka guud adi magacaadu ugu dhawaaqay qofka sidiisaba la iskama doorto
doorashadiisa waxay ka imaataa xag alla samada ayaa loogu dhawaaqaa kadib ayuu bani aadanka uu sheegaa waxaan ku leenahay mid abshir Allah ka dhigo soo dadaal sida lagu doortayna ka soo bax إن شاء الله وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين وبعد. أنا وأه مجيء سياد علي قلو جوجو أقل هوريجا تداب ومانتو كشري ري على دمانتيس وعلى كم قنان المضى عمضى يرضى وعلى شيء وحول بو أي هالكاس يكوي مادين هالكاس يكوي مادين دم طاله إيريا لما جالي MCA إني كتشدان marka alxamdulillah tii aydeed maanta ilaahay baa noo soo dhameeyay way gabagabowday waa isku raacanay afartii wiil inaan ka reebano Umar Cabdi Gabac ay ilaahay boqorka noo qadari wax walba markii ilaahay qadaro ay dhacaysaa marka insha Allah waxaan rabaa Umar Cabdi Gabac inuu macnaha fariintii qaato oo fariinta reer u qaato khilaafaadii wax walba reer ku jir u dhameeyo hasi dhankiisana wax ka imaanin ayaa fariinta soo baaqaya waxa dhacday dohora markii anaga aan ahayn dhamaajale u tartanay reer cali israacay kursiga si fudud ayaan ku helnay si fudud markaan ku helnay dhaxdan waxa dhacday in macnaha ninka aan dooranay iyo jeemanka iyo guddiga ay isfahmi waayaan khilaaf ku dhaafay 5 sano madda nala fadhiyo waa madayda marka fadlan waxa ka codsanayaa adoo ogaaski ah adoo anaga maqan ku soo qaadanay sidii macnaha khilaafkii dohor ku imaaday inaad ka ilaaliso jeemanka aad ku xirnaato gudi raacada ilaaliso awliyaanka soo dhaweyso intaasaan ku dardaarmaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh